Thanks so much for coming, Mom. You excited? Of course I am excited. Thank you so much for coming, Mom. Aad ayaad hooyo ugu mahadsan tahay imaanshiyahaaga. Are you excited? Mid xiisaynaysa hooyo? Of course, haabay tidhi. I'm excited. Anagoo xiisaynaya. Asalaamu calaykum. Waa idin salaamaya asxaabta. Magacaygu waa Cabaas Jaamac Cali. Haddii tahay markii koowaad YouTube-kan soo boqoto, waxaan kugu baraarujin lahaa inaad like, subscribe iyo commentigaaga wanaagsan intaba nula wadaagto. haddii aad ka mid ahayd asxaabtii hore ugu xunayd YouTube-kan, sidoo kale like waa noo muhiim, commentigu iyo wixii faalle aad muuqaalkan ka dhiiban kartaay waa noo muhiim yana. My son is introducing me to his girlfriend for the first time during the best time of the year. Maamadii waxay tidhi, my son inankaygu is introducing me, wuxuu barayaa aniga his girlfriend, saaxiibadii ayuu barayaa for the first time, markii koowaad ayuu barayaa iyadoo lagu guda jiro the best time of the year, waqtigii ugu wanaagsan ee sanadkan lagu guda jiro. Today is going to be perfect. Maamadii waxay tidhi imikana iyadoo wejigeeda farxad ka muuqato, today is gonna be perfect. maanta waxay noqonaysaa maalin dhammaystiran, yacni maalin aad u cajiib ah ayay noqonaysaa ay ka wadaa. Yeah. Actually, give me 1 second, Mom. She should be around here somewhere. inankeed markaa wuxuu yidhi, actually waantii buu yidhi, give me 1 second, Mom buu yidhi, yara sug hooyay, she should be around here, waa inay meelahan joogtaa somewhere, meel uun markaa meelahan ka baaraya gabadhii. Oh, watch where you're going. Maamadii waxay ku tiri inantii, watch where you going, iska fiir meeshaad ku socoto. waa hadal la isticmaalo markuu qof ku jiro oo kale isagoo markaan ku arkayn ayaa lagu yidhaahdaa iska fiir meeshaad ku socoto oo kale, iska eeg. watch where you going. Can I help you with something? maamadii waxay weydiisay markaa, can I help you with something, waxbaan kaa caawiyaa bay ku tiri. su-aal bay weydiisay. waxaa loo isticmaalaa markaad qof weydiinayso waxaad kaa caawiso oo kale, aad leedahay miyay jiraan waxaan kaa caawiyayoo kale ama miqaan kaa caawiyayoo kale, qaabkaas oo kale inaad u tiraahdo can I help you with something ayay ku tiri, waxaan kaa caawiyaa bay markaa weydiisay. Hi, I'm Jennifer. I'm Zeke's girlfriend. It's so nice to meet you. gabadhii ayaa markaas isbartay oo isu sheegtay maamadii cidda ay tahay, waxayna ku tiri I am Zeke's girlfriend, anigu waxaanay Zeke saaxiibadii baan ahay. Zeekaasna waxa weeye waa inankeedii islaantan ay dhashay. waxayna tiri it is so nice to meet with you, aad ay u fiican tahay inaan kula kulmo. Excuse me, you're Zeke's. I'm sorry, you must be mistaken. maamadii waxay tidhi excuse me, iga raali ahaw, I'm sorry, waan ka xumahay, you must be mistaken, waad khaldan tahay. you must be mistaken waa eray aad u isticmaali karto markaad doonayso qof inaad ku tiraahdo waad khaldan tahay, weliba qaab aanad doonayn qofka inaad u muujin si anshax xumo oo kale, aad si wanaagsan ula hadasho tiraahmay waad khaldanta oo kale, oo politely aad ula hadasho si wanaagsan. markaa waxay ku tidhi waad khaldan tahay.